salaadii subax markii laga baxay buu nabigu ayaa xalay toola arkay buu riyo suuradii baa socota taladii baa socota tashigii diinta socda nin saxaabada kamid ahaayo waliba rag busodada kamid ahaa ayaa ila xalay toola aan dhinacna ka sii loolanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu dhawaaq dhagtayda lagu dhawaaqayo erayadiina waan xasuusanahay nabi allah markaa buu nabigu erayadii ma xasuusantahay haa bal erayadii xalay dhigtaada lagu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayay ninkii aadaankii buu sii daayay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله koş şeytanı tutuyor. Bilal, bu ezanı Bilal okuyor. أشهد أن لا إله إلا الله masaajidka markaas wuxuu noqday meesha ummadda nabigu ku tarbiyadeeyo hadii diin la baraayana qofka masjidka lagu barayay hadii wufuud nabigu uu qaabilayna masjidku ku qaabilayay haduu nabigu ciidamo uu darayna masjidku ka daraayay haduu maaragtaan jamaacada diinta ilaahay fidinaya uu darayna masjidku ka daraayay hadii nabigu calayhi salaatu wasalaam hadii ummadda uu la tashanayna masjidka dhexdeedu nabigu kula tashanayay salaadii cishaa buu nabigu ka baxay uu istaagay wuxuu yiri salaadii ilaahay baan nasiyo nagu farad yeelay laakiin sidaan ummadda salaada aan ugu yeedhi lahayn baa laynaga rabaa ka tala bixiya buu rasuulku yiri danta ummadoo dhan nabigu masjid buu ka bilaabay sideen ummadda salaada xageega aan ugu yeedhnaa waa talo waa tashi waa ilaahay imika ummad bay fahmi laadahay war diinta tashi bay u baahan tahay diintan dhageysa kaliya uma baahno diintan waxay u baahan tahay caaqilka iyo caalimka ka yar iyo ka weyn faqiir iyo qani madaxdeennii mijaheenu intoon masaajida ku kulanno salaad waan ku kulannaa alxamdulilah laakiin waxaa la rabaa inaan ku kulanno diinta tashigeega inaan ku kulanno sidaan ummadda salaada xaggeega ugu yeedhnaa salaada nebiga isagaa loo soo dhiibay halka axkaamta kale oo dhanna nebiga arlada isagoo jooga loogu soo dhiibay jibriil calayhi salaam soonka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loo soo dhiibay zakada markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay xajka markii ummadda lagu farad yeelay jibriil baa loogu soo dhiibay alcibaadaat anwaac alcibaadaat oo dhan markii nebiga iyo ummaddiisa lagu farad yeelayay jibriil baa nebiga loogu soo dhiibo arlada ugu keenayay laakiin salaada markay noqotay salaada nebi maxamed baa intuu arlada laga qaaday oo la dheelmiyey oo haddana micraaj loo bilaabay leylat alisra walmicraaj ayuu nebigu ilaahay la soo munaajooday بدنا شنتا صلوات بالنبي الله صودي بشنتا صلوات لكن هبكي أمة صلاة الله يرايي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أمتي صلى الله دافعين كفكرتك كتشط بركان نبا الصحابي يا يري مركز أنا وحيلق من بر النبي الله إن بر حديد أخذ فنا مركز قوض عمرك يلا مغلو dadku way maqlayaan dhawaaqa marka birta la dhacayo dadna masjidka imanayaan marka buu nabigu taan nasaarada ayaa isticmaasho waa jarsi weeyaan ee tala kala keenay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin kale yiri anigana waxa ila quman inaan dab shidno oo dabka marka la arkay qiiqiisii holo ciisa ayaa muslimiintu garanayaan salaadii waqtigeeda inuu gaaray dadna salaada imanayaan taana qolada caadiga dabka caabuda isticmaasho tala keenay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dadna marka hadana nin kale yiri anigana waxa ila tahay booq illa afuufa fuurin taana yahuuda isticmaasho waa caadada yahuude tu kala keenay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam suuradii habeenkii markay muddo dheer ay socotay buu nabigu yiri arrinkaas caawa haynagu bariya subaxda haynoo haata buu rasuulku yiri sidaan ummadda masaajidka ugu soo xidhnaa sidaan ummadda aan salaada ugu soo xidhnaa sidee ummaddan ilaahay ugu xidhantaa ayuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa kala tashanaya
salaada awqaadeeda iyo kayfiyadeeda iyo inta rakacadood ay tahay iyo hay-adda salaada iyo awqaadda la tukan kullahaa waa waxyi weeyaan waa cibaado weeyaan nebiga waa loo waxyooday laakiin kayfiyaddii ummaddu salaada loogu yeedhi lahaa waxaa loo dhaafay nebiga iyo ummaddiisu inay ka tashato halkaa maxaad ka fahmaysaa sidii masaajidda shaqada loo dhisay bay kamid tahay shuuradu in dadka muslimiintu danta ummadda talada ummadda maxaa ummadda u dana diintooda maxaa u dana adduunyadooda maxaa u dana noloshooda khaaska maxaa u dana noloshooda caamka maxaa u dana inay ummaddu arrinkaa masaajidda dhexdeeda ay kaga tashato waa sharci ilaahay noo soo dejiyey weeyaan waa sunna nabawiya laakiin mahjuuro maanta laga hijroodo ummaddu ka indiraastay weeyaan salaadii subax markii laga baxay buu nebigu yihi ayaa xalay toola arkay buu yihi riyo shuuradii baa socota taladii baa socota tashigii diintaa socda nin saxaabada ka mid ahaayo weliba ragga busadada ka mid ahaa ayaa yidhi xalay toola anoo dhinacna kasii lulanaya dhinacna ka soo jeeda ayaan maqlay buu yihi dhawaaq dhegtayda lagu dhawaaqaayo erayadiina waan xasuusanahay nebi allow markaabuu nebigu yihi erayadii ma xasuusan tahay haa bal erayadii xalay dhegtaada lagugu dhawaaqeed maqlaysid noo sheeg markaasuu sii daayey ninkii aadaankii buu sii daayey allahu akbar allahu akbar markaasuu yidhi cumar bnu khadaab aniguna manaamka xalay waan arkay 6 nin oo saxaabadii ka mid a isku mid bay yidhahdeen annaguna xalay riyadaa waan ku riyoonnay markaabuu nebigu yidhi adinkeenni waa kaase laakiin aadaankaa bilaal bara buu rasuulku ka yidhi